magacaygu waa Maxamed Suleymaan waxaan bishaaro u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Laascano oo maanta guul weyn ka muujiyay dagaalkii dhacay nimankii Soomaaliland waa laga saaray magaalada Laascano ahayd ciidamadii naga harsanaa ee ku harsanaa maamulka Soomaaliland hadda dagaalka way galeen in cambaashe iyo ciidamadii kale oo dhan iyo fulhawiye dhammaan ciidamadii waan u hambalyeynaya dhammaan ummadii dhibaatayna Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo gaar ahaan waxaan tacsiyadeynaya adeerkay Faarax Ducaale oo isna kamid ah dadka xaq darrada lagu laayay subax saaka madafiic badan baa magaaladii anomaldiin baa lagu garaacay qasaaruhu waa badan yahay waxaan soo koobi karnaa maaha laakiin muhiimadu waxa inoo tahay inaan si xor ah Laascano maanta ay ku joogaan dadkii reer Laascano ismadii go'aankii ismadii waa mahadsantiin baan leeyahay go'aankiina waan u qaadanay waka maanta shaqeeyay oo jeedaan magaalada Laascano ahayd waxaan leeyahay ummadda kale ee darska ah ee dadka ehelka aan ehel wadaagta aanu nahay in ay ummadii way arkaan in isir loo leynayo dadkii horena lagu leyn jiray dad maxaabiis baa jira oo nolosha iyagoo nool god la geliyay oo 12 sano xidhnaa wixii way isu soo tareen wixii waa kuwa maanta aad u jeedaan inay dadkii ka falceliyeen wixii iska dulqaadeen shalay hadii la lahaa dhubaanta qaybsan maanta ma qaybsana waxaan u doonaynaa dhammaan dadyoga ehelka in ay qayb ka noqdaan dadkaas bawda rag maalinba mid baa qaawan maanta waxa weeye meesha saxbad baa ka dhacaysa dadkaasuna waxa loo adeegsanaya waa shaati dawladeed madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni waxaan leeyahay dadkaad u dhaaratay aad Puntland u dhaaratay dad kamid ah madaxweyne kaamana filayn maanta inay ciidamada Puntland isku mashquulaan inay isku urursadaan furin baa maanta furinta inay qayb ka noqdaan baan rabnay inay xoreynta dadka hadii ma shalay aad lahayd Soomaaliland wax badan baa naga dhaxeeya waxa weeye wixii way soo tartay waxaan leeyahay madaxweyne dadka hanaga mashquulin hanaga sii jeedin adigu hadaadan waxna tareen ummadda tolka waxna tari doona dadka noo sidaa reer Puntland waxaan leeyahay waxa weeye ummaddaas maanta garab bay u baahan tahay dadkuna